waxaan idinku ammaanayaa hadda marka aan golaha wasiirada fadhino marar badan waxaan maqlaa in la yiraahdo xafiiska ra'iisul wasaaruhu si fiican u shaqeeyo taas macnaheedu waxay tahay in shaqadiinii aad ka soo bixi rabtaan ama aad ka soo baxdeen macnuhu waxa uu yahay adinka meeshan fadhiya iyo aniguba waxaan helnay fursad ah inaan matalno shacabka Soomaaliyeed aniga iyo idinkuba nasiib baan leenahay kama wanaagsanin dadka intooda aniga idinkaba ilaahay baa noo gartay inaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ka shaqeyno oo aan ahaano astaanka qaranka macnaheedu marka waxay tahay fursadaas ma soo martay waa inay dadka Soomaaliyeedna nagula xisaabtamaan ilaahayna uu nagula xisaabtamaan haddii marka 15 milyan oo Soomaaliyeed uu Axmed Nuur ka mid yahay ama wiilkan uu ka mid yahay ama Amalkiif ka mid tahay macnaheedu waxay tahay ma aha inay dadka ka wanaagsan yihiin laakiin waxay heleen fursadaas ay heleen hadday ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideyn waayaan waxay tahay fursad ummadda soo martay ay ka xumaynayaan ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa marka waxaa la rabaa inuu tusaalihii dawladnimada ahaado waxaa la rabaa maadaama annagu aan nahay xafiiskii la hadlaayay xafiisyada kale ee dawladda oo wasaaraduhu ay hoos imaanayeen inay nagu daysan karaan oo aanay naga carabin in haddii shaqada la imaanayo annagu aan ugu horreyn haddii musuqmaasuq lala dagaalamayo annagu aan ugu horreyn waxaa la rabaa marka xafiiska ra'iisul wasaaruhu inuu ka turjumo tusaalaha shaqo wanaagga tusaalaha aaminaadda tusaalaha ka madax bannaan musuqmaasuqa inuu leeyahay dhaqanka cusub oo ah dawladnimada uu madaxweynuhu dalka ku hogaamiyo oo xukuumaddu ay ku shaqeyso oo la rabo golaha wasiirada inay ku shaqeeyaan waa ogahay in dhib badan la soo maray laakiin waxaan rabaa inaan iska ilaalino fikirka ah dhib badanaa la soo maray meel fiican aan joognaa waa in hadafkeenu uu ahaado hadda waxaa lagu jiraa qarniga 21aad waxaan rabnaa dunida inaan la tartano waxaan rabnaa dalkeena inaan laga cararin ee lagu soo cararo waxaan rabnaa marka annagu horta marka hore inaan isfahmo waxaan isku fahmaynaa waxay tahay waa inaan runta isu sheegi karno runta iyo aaminaadda aan rabno dalka inaan ku dhaqno waa inaan annagu iska bilowno annagu waa inaan musuqmaasuqa ka wada hadli karno oo xafiiska haddii uu laalaab ka jiran agaasimaha loo soo sheegi karo haddii agaasimaha loo soo sheegi waayana wasiirka loo soo sheegi karo haddii wasiirku wax ka qaban waayana aniga la ii soo sheegi karo waa in shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaruhu ay ka duwan yihiin shaqaalaha intooda kale si iyagu ay tusaale u noqdaan in la is abaabulo waayo waa guddi leeyihiin sababtu waxay tahay subaxii 8:00 ilaa maalintii 5 galabnimo kulligiina isla joogo idinka isu yimaada idinka wada shaqeeya haddii aadan idinku isku faraxsanaynina macnaheedu waxay tahay shaqadiina kuma faraxsanidina haddii aadan shaqadiina ku faraxsanayna waxaad ka tegaysaan xafiiska idinkoo niyad xumadina waxaad ula tegaysaan guryihiina iyo carruurtiina iyo xaasaskiina meesha aad ka shaqeyso inay kuu wanaagsan tahay mustaqbalkaada iyo caafimaadkaada u wanaagsan tahay dalka iyo dawladnimadana waa u wanaagsan tahay waayo waqtigaada inta ugu badan oo wax qaban kartid waa soo jeedid xafiiskan aad joogtaa meesha aad ka shaqeynaysid inaad wanaajisid marka dalka iyo mustaqbalkaada ka soko caafimaadkaada iyo niyad wanaaggaada u wanaagsan tahay halkan waxaan anagu u nimid iyadoo shaqo badan u baahan kuwii naga horreeyana waxay u yimaadeen iyagoo shaqo badan u baahan kuwa naga dambeeyana waxay u imaan doonaan iyadoo shaqo badan u baahan maalinba meelay joogtaan laakiin muhiimaddu waxa ay tahay
inaan wax ka tagno waxa aan ka tegayna laakiin waa inay ka duwanaadaan wixii hore loogu soo fashay. marka arrinta ah inaad horta xafiiska ra'iisul wasaaraha joogtaan oo aad ka shaqaysaan oo aad fursad u hesheen oo tihiin tusaalihii ummadda, waxaan rabaa inaad ku baraarugsanataan kulligii. waxaa soo haray siyaasadda dowladdeenu waa maxay. waxaan rajaynayaa horta in maadaama aad waxyo kala duwan ka tirsan tihiin in aada ogtihiin sida shaqadu ay xafiiska uga socoto iyo qaabka uu dalku u shaqaynayo. laakiin hadafyada guud oo aan rabno horta waxay tahay annagu maadaama aan dowladnimada albaabkeedii nahay, waa in horta meeshaan degana aan ka bilowno. isxilqaanka waa inaan xafiisyadeena gudahooda ka bilowno. horta kow waxaan rabaa inaan idiin sheego in qof walba oo dowladda u shaqeeya uu ka walwalo mushaar inuu qaadanayo iyo aanan qaadanayn. waa waxyaabaha ay tahay inaan la aqbalin in lagu qanco. qofku marka uu meel ka shaqeeyo inuu mushaar qaato xaq uu leeyahay, cidda mas-uulkaana xaqa lagu leeyahay. laakiin waxaa la rabaa inteena mas-uuliyiinta inaan u fikirno qaabka aan u dhaqanno ayaa waxay door ku yeelanaysaa dadka shaqaalaha inay mushaarkooda qaadan karaan, qof ganacsadaha in ganacsigiisu najixi karo, gabar mustaqbal meel ka rabta inay samaysato inay ka samaysantahay kartay in kale. muhiimadda dowladnimada macnaheedu waxay tahay waa inaan ogaanaa qaab dhaqankeenna ayaa waxaa ku xiran nolosha dad badan oo Soomaaliyeed. marka in hay-adaha dowladda ay shaqeeyaan, in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay wada shaqeeyaan, in xoolaha canshuurta ah ee laga soo qaado dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah si ammaano ah loo maamulo, in musuqmaasuqa lala dagaalamo, in qabyaaladeenna jeclaysiga la iska ilaaliyo. waxyaabahaasoo dhammi waxay salka ku hayaan waxaad ka hadlayseen. maadaama dhib badan aan soo marnay, waxaa laga yaabaa marka in qanacadeennuna ay aada u dhowdahay. waa wax wanaagsan, laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaa nala ka rabo wax weyn inay yihiin shaqooyinka nala ka rabo. dhaqanka shaqada dalkeenna iyo dunida ayaan rabaa marka inaan idiin sheego. dalkeenna inta badan waxay tahay dadkaa shaqo raadsada si uu qofku u helo qutulyoon. dunidu laakiin shaqada ayaa dadka raba. qof waliba waa inuu isqiyaasaa marka. waa in baahida shaqadu ay noo qabto mar walba ay ka badan tahay shaqada annaga baahida aan u qabno. macnaheedu waxay tahay qof walba oo idinka mid ah waa inuu inta hadda uu hayo wax ku daro. ugu dambeyntii waxaan aaminsanahay haddii qalbigeenu nadiif yahay, hadafkeenu uu soomaalinimo yahay, wax ay naga dhab tahay inaan dalkan wax u qabanno, ummadda aan dhibka ka saarno, mustaqbalkan ka wanaagsan aan higsano, waa imaanaynaa, meeshaasna waa gaarayna. tusaaluhu waxa uu yahay markii aan shaqada bilownay meeshii aan fadhino waad ogeedeen sida ay tahay. guryahan dad baa deganaa, banaanku sida ay ahayd waa ogtihiin. dhaqaalaha waddanka waad ogeedeen, dhaqanka siyaasadeed ee dalka waad ogaadeen siduu ahaa. waa awoodnay annaga lafteenno inaan ka baqno isbeddel inaan samayno. qofkii idinka mida marka oo markii aan shaqada bilaabeynay aan ku qanacsanayn isbeddel inuu imaanayo, waxaan rajaynayaa inaad aragtay hadda isbeddel inuu bilowday. inta ku dhaaftay hadda xooggii aada la baaqatay keen waa mahadsantihiin.